wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa saaka subaxii hore waxa uu kormeer ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Gabiley, cisbitaalka dhimirka iyo waliba cisbitaalka magaalada Wajaale. kormeerkani saaka wasiirka caafimaadku ku mariyay cisbitaalada magaalada Gabiley iyo Wajaale ayaa waxay noqonayaan kii ugu horeeyay ee wasiirku ku yimaado gobolka Gabiley, waxaana uu daaranaa wax ka ogaanshaha cisbitaaladan iyo shaqooyinka ay u qabtaan bulshada. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gabiley, waxaana uu wasiirka warbixin ka siiyay sida ay u shaqeeyaan. maanta wasaaradda caafimaadka ayaa kormeer guud ku yimid cisbitaalka guud ee gobolka Gabiley, isagoo dhammaan soo wada kormeeray qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalku sida waararka, qaybta umusha, qaybta qalliinka iyo cisbitaalka dhimirka. dhammaan si xaaladda guud ee gobolka iyo caafimaadka iyo dadka xanuunsanaya uu indheeyo. marka kormeerka guud uu sameeyay wasiirku inuu xaaladda caafimaadka gobolka aad u fiican tahay, cisbitaalku aad si fiican buu shaqeynayaa, waararkiisa iyo maamulkiisa iyo shaqaalihiisa waa heegan bay ku jiraan 24 saacadood. ambalaaskii iyo dhammaan waxyaabihii necessary ahaa caafimaadka dawladda way dhameystiran yihiin. cisbitaalku wuxuu shaqaalihiisu waa 82 ruux oo iskugu jira dhakhaatiir, nurse, midwife iyo washman iyo cleaner nadiifiso. dhammaan shaqaalahaasi waxay ka howlgalaan shiftiyada kala duwan sida ABC 3 shifti. sidoo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ku dhawaajiyay non-communicable disease iyadoo awood la saarayo loo soo asaangareeyay dhakhtar ku takhasusay diabetika, taasoo la dardargelinaya siyaasadda qaranka iyo siyaasadda wasaaradda horumarinta caafimaadka. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. run ahaantii waa cisbitaal ay ka muuqato maamul wanaagsan, nadaafad iyo qorshe iyo in uu dhameystiran yihiin inta badan adeegyadii u baahnaa cisbitaal guud. inkastoo haddana deheesay hagaajintu oo fursad aynu haysanay inaan waxay dhammaan dhameystirno wixii imiga inoo qabsoomeyna aynu joogtayno. sidoo kalena waxaan isleeyahay cisbitaalku waa cisbitaal markaan dhex maray aan eegay la odhan karo wixii la geliyey ama wixii muxuu khayraad dawladdu ama siiso ama si kala helaan ka muuqda. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka. waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin, warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.